Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa safarkiisii xogdoon ku tagay magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed wasiiro xildhibaano mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose dadweyne kale ayaa Ra'iisul Wasaare Khayre iyo wafdigiisa si heersare ugu soo dhaweeyay magaalada xeebeedka Marko safarka Ra'iisul Wasaare Khayre magaalada Marko oo xambaarsan xogradinta baahida shacabka iyo dhageysiga talooyinka tabashada iyo tusaalaha ay qabaan ee ka qayb qaadanaya qorshaha horumarinta adeegyada bulshada reer Marko ayaa ah lugtii ugu dambeysay socdaalkii shaqo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku marayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlayay dadweyne isugu soo baxay soo dhaweyntiisa ayaa uga mahadceliyay sida sharafta badan ee ay ku jirto dowlad jacaylka ee ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Marko mujtamacii gumaysiga miinsaad ku saaro marka cadeeyay ma nabadba dhulkii beeraha badnaayo mooskii iyo bambeelmada lagu manaystay marka cadeeyay ma nabadba magaaladii dalxiiskii oo masnooyinkii lagu taxay marka cadeeyay ma nabadba dadku muruqa maaliyo xalaal miiradka hayo marka cadeeyay ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka cadeeyay ma nabadba Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in dowladda oo kaashanaysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka shaqaynayso horumarinta Marko iyo daboolida baahiyaha bulshada ay qabaan ee sida degdega u baahan wax looga qabto magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato magaalada dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxaa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo Afrika iyo Aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato astaanta taariikhda ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan idinkugu yimid inaan idiin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqeyno inaan dib u soo nooleyno dhalinyarada Soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dib u dhiska magaalada idinkala shaqeynaa waxaa layga codsaday inaan halkan ka sheego in dhalinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berri ah in garoonkiina ciyaaraha laydin dhiso inta kalena waxaan idinkala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina markaan idin leeyahay waa dhammaatay wakhtigii la cabsan jiray wakhtigii la shakin jiray wakhtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda Soomaaliyeed been u sheegi jiray wakhtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan leenahay haddii reer Marko ay iska xoreeyaan cadowgii inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen sababta aan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay waa inaad jawaab u heshaan halhayskii reer Markood oo ahaa sax madow caanihiisa wixii cadeeyay cibaaro leh maaho magaalada Marke ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ah deegaanadii dowladda federaalka Soomaaliya ee ka hirgelisay dib u heshiisiinta waarta isla markaana shacabku ay iskula nool yihiin wadajir iyo walaaltinimo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bulshada Marko ku nool ku amaanay dhaqangelinta dib u heshiisiinta dowladdu ka hirgelisay midnimada iyo sida ay u sugeen amniga waxauna kula dardaarmay inay si laba jibaaraan waxaan rabnaa inaan idiin sheegno reer Marko iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaanta cusub ee qarannimada ummadda Soomaaliyeed waa idin garab taaganahay waa idin mahad celinaynaa dib u heshiisiinta wada noolaanshaha xasiloonida aqbalaadda in la aqbalo in laga gudbo dhaqankii hore loo gudbo dhaqan cusub reer Marka hormuudka ah Marko waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose in cadowga laga xoreeyo dhammaan degmooyinka gobolka Baay iyo Bokool inay xor ahaadaan waxaan rabnaa reer Koonfur Galbeed inay noqdaan hormuudka dowladnimada iyo isku duubnida Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Marko